بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسو دبادة عشرة طحناها مادة فيزيكا فصل كفوم فور مقرر كدكسيد السرة جبتركا عن ولي كل حجرنا والساوند ويفز موجودها جبغدا أما هيرارك جبغدا لبا عشرة رؤوس وقادني لسوون introduction to reflection introduction to sound waves عن كجسو هذا لني عشرك اللبات وحن كجسو هذا لني وحلوي كان reflection of sound and echo نقط كجبغدا يديان كقاب اسمه اسمه lesson 3 وحن كجاندي دونا properties of sound and horta jabtarka 13 ayuu u kala qaaday. lesson 1 wuxuu ka dhigay introduction to sound waves, lesson 2 wuxuu ka dhigay reflection of sound waves and echo, lesson 3 wuxuu u bixiyay properties of sound. marka anaga lesson 3 ga ayaan sii kala qaadaynaa maadaama hal cashir uu yahay, halka cashirna uu badan yahay waxaan ka dhigaynaa lesson ilaa iyo dhowr iyo 4 cashir aan ka dhigaynaa lesson 3 kaligiisa si ardaygu u fahmo macnaha in macnaha uu kala saarnaado maadaama dhamaantooda properties of sound la isku dhaho, laakiin si ugu fudud uu ardaygu uu ku fahmi karo aan kala qaadaa insha Allah taala. hadda properties of sound oo kale marka ka hadlayno waxa lagu dhahay marka properties of sound oo kale waxaan xoog ku saareynaa intensity and intensity level. lesson 4 aan ka dhigaynaa 5 6 saas oo wadeena waa lesson 3 gii oo aan macnaha bit aan kala qaadnay way. marka lesson 3 wuxuu ku dhahay properties of sound. properties of sound maxaa marka waa astaamaha ama propertiyada uu sound iyo codka. marka soundiga marka laga hadlayo marka has 3 physical properties of sound, saddex muuqaal ayuu leeyahay codka. marka ugu horeeyo properties number 1 waxa loo yaqaan intensity oo ah itaalka codka ama itaalka jabaqda. number 2 oo ah frequency oo noqodka jabaqda. number 3 oo ah waxa loo yaqaan number 2 oo frequency oo noqodka ama rakaadka jabaqda. number 3 oo harmonic contentiska qaabka codka uu ku sameysmo waayahay. marka saddexdaan properties mid ayuu ku xiran yahay. tusaale the effect of this property, tusaale marka soo qaadan hada intensity level, intensity oo kale itaalka jabaqdu wuxuu ku xiran yahay waxa loo yaqaan loudness oo ah qaylada. loudness ayuu ku xiran yahay intensity-ga ama uu ku tiirsan yahay. number 2 frequency-ga asagana wuxuu ku tiirsan yahay waxa loo yaqaan pitch-ka oo ah faraqa. number 3 harmonic content-ga asna wuxuu ku xiran yahay waxa loo yaqaan quality-ga oo ah tayada codka. marka saddex aan kala qaad maxaa lagu dhahay marka properties maadaama ay yihiin intensity, frequency iyo harmonic, saddexdooda waxay ku samaysan yihiin loudness iyo pitch iyo quality waay. macnaha hadii waxaan dhihi karnaa meesha intensity, frequency, harmonic aan dhihi lahayn waxaan kaloo dhihi karnaa loudness iyo pitch iyo quality. waxaa waaye marka properties ama effects of soundiga waxaan leenahay codka waxaa saameeya loudness, pitch iyo quality, ama waxaan dhihi karnaa intensity, frequency iyo harmonic content. meesha waxa laga yaabaa su'aal inay ka soo dhaxbaado isku aadin oo kale. waxa lagu leeyahay isku aadi ereydan ku aadi. marka inta waxa lagu dhigayaa tusaale oo kale intensity, frequency, harmonic content. inta waxa lagu dhigi karaa loudness iyo pitch iyo quality-ga. marka waxa la rabaa inaad kala saarto. marka intensity itaalka jabaqda wuxuu ku xiran yahay energy-ga, loudness qaylada. energy uu macnaha uu ka intense badan yahay ama uu ka energy badan yahay oo uu ka loudness qayla dheeraanaya. frequency uu ka badan yahay waa uu ka pitch badan yahay mina. harmonic content-gana maxaa waaye waa quality tayada oo qaab wave forms, qaab wave-ku macnaha u socdo. waayo waxaan ku hormareynaa marka intensity iyo loudness aan ku hormareynaa. intensity oo itaalka jabaqda iyo loudness oo qaylada. the amplitude oo aan ku soo sheegnay wax loo yaqaano amplitude-ku waa soo baranay, waxaan ku soo baranay chapter-kii ahaa wave motion-ka ama waveska. wuxuu kamid ahaa characteristics-ka uu wave u maro. marka the amplitude qotinta of sound waves mawjadaha jabaqda depends on waxay ku xiran tahay the force awooda in which taasoo an object walaacdu is made up ka sameysanta to vibrate inay ku gurufto. marka meesha waxa lagu dhigi karaa loudness wuxuu ku tiirsan yahay isaga asal ahaantiisba amplitude waay. marka intensity xitaa waxa la dhigi karaa amplitude ayaa meesha lagu gelin karaa. amplitude ayaa halkaas la dhigi karaa. marka loudness wuxuu ku xiran yahay depends on amplitude waay. marka maxaa waxa lagu dhigi karaa loudness wuxuu ku tiirsan yahay amplitude or waxa lagu leeyahay waxa loo yaqaano pitch-ka waxa leedahay waa amplitude-ka. marka loudness-ka qaylada describes waxay sheegtaa how loud inta dheereeya or ama soft ama uu gaabiya sound codka is perceived to be uu jiro. marka loudness intaas oo definition gareena maxaa leedahay loudness wuxuu sheegaa
codka inuu dheereeyo iyo inuu gaabiyo ama inuu yahay hard ama inuu yahay soft oo loola jeedo cod dheer iyo cod gaaban waa loudness marka loudness wuxuu ku xiran yahay amplitude-ka qotinka codka ayuu ku xiran yahay qotinka codka maxaa loola jeedaa qotinka codka waxaa loola jeedaa had tusaale oo kale halkan waxaa inoo yaala sabir ayaa inoo yaalo oo wave ayaa sameysmay marka intan wave inoo yaalo intan waxaa inoo yaalo wave kale ayaa inoo yaalo marka labada wave markaan isla barbar dhigno waa macnaha labadooda waa wave-yo laakiin maxay ku kala duwan yihiin anagoo rabno inaan soo saarno waxa loo yaqaano intensity-ga iyo waxa loo yaqaano loudness-ka marka labadan wave waxay ku kala duwan yihiin amplitude-ka kan amplitude waa intaas amplitude hore usoo baranay waa maximum macnaha inta uu dheereeyo uu ku socdo waa walaxda kanna marka amplitude-kiisa waa kana marka labadooda amplitude dheer kan hadda u bixina a kan aan dhahana waa wave b marka labadooda wave a iyo b yaa dheer waxaa dheer amplitude-ka b-ga ayaa amplitude dheer marka labadooda maadaama b-du amplitude dheer yahay haddana xagga loudness marka laga fiiriyo waxaa loudness badan wave-ka labaad ayaa loudness badan marka loudness-ka hadii jeer wuxuu ku sheegaa amplitude-ka qotonka codka marna kor u baxo marna hoos u baxo marka hadduu codku u dheeraado wave-ka amplitude hadduu dheeraado intensity-ga waa u dheeraanaya hadduu intensity-ga u dheeraadana loudness-ka codka ayaa dheeraanaya marka saddexdooda saas iskugu xirxiran yihiin meelaha haddii laba wave halkan lagu dhigo labadan wave-ka amplitude weyn waxaa amplitude waa inta tuurta kor u baxda ama inta hoos u baxda marka labadan tuurood tuurta koro tan ayaa b-da ayaa wave badan ayaa amplitude badan marka labada ayaa loudness dheer ama yaa qaale dheer wave-ku ka macnaha amplitude dheer yahay uu ka qayl badan yahay marka b-da intensity saas oo kale waa energy tusaale marka usoo qaadan oo kale gurbaan oo kale ama gurbaan ayaa waxaan dul saarnay ka soo qaad ciid ama waxaan dul saarnay bur ama dhagax wax baan dul saarnay mar gurbaanka hadaan si tartiib aan jug u siino iyo hadaan xoog ku dhufano way ku kala duwan yihiin macnaha caradaas ama burka intuu kor u kacayo marka hadaan tartiib u dhufano energy-ga macnaha wuu hooseeyaa marka haddii energy yar aan saarno wax loo yaqaano rate-ka amplitude-ka haddii aan power yar aan saarno wuxuu soo saaraya amplitude yar ayuu soo saaraya gurbaanka haddaan power fara badan energy fara badan haddaan gurbaanka aan dul saarana wuxuu soo saaraya amplitude fara badan ayuu carada ayay soo saaraysa ama burka ama wixii meesha dhagax ama wixii aan dul saarno marka wave ka amplitude dheer yahay waa uu ka loudness badan yahay ama waa uu ka intensity badan marka waxay ku xiran tahay hadba intensity-ga energy-ga uu qofku u isticmaalay ayay ku xiran tahay waayahay small amplitude care of sound wave waxaa loo yaqaanaa soft sound ayaa loo yaqaanaa amplitude-ka codka yar waxaa loo yaqaanaa soft sound large amplitude dheer waxaa loo yaqaanaa loud sound hadda kan oo kale maxaa waaye maadaama uu amplitude-ku yar yahay waxaan ku naqaanaa soft sound ama quieter sound kana maadaama amplitude uu dheer yahay waxaan leenahay waa louder sound ama waa loud sound marka labadooda markaad fiiriso waa ay kala amplitude dheer yihiin waa ay ku kala amplitude duwan yihiin waaye noodo lagu wada the large amplitude kulama uu bato the louder of sound kulama codka uu qaylada uu weynaado amplitude-ka duu bato qayladan way badanaysaa waayahay aan sii socona marka intensity level halkan ku galeynaa intensity level intensity waa itaal and intensity level iyo heerka itaalka marka intensity itaal maxaa la wadaa itaal waxaa loola jeedaa intaan qeexin koor waxaa lagu dhahay the loudness qaylada of sound codka is measured waxaa lagu cabiraa marka hore loudness-ka halbeegiisu waa decibel waxaa loo yaqaanaa decibel dB loo soo gaabiyaa marka the intensity of sound maxaa la definition-kiisa waa kana itaalka jabaqdu marka definition gareena waxaa leenahay waa is the rate waa dhaqsiga ama energy at which the sound energy tamarta codku flows uu ku qulayo through a unit area bedka macnaha aad saartay power-kaaga normally taasoo normal ku ah direction-ka uu socdo sound waves-ka maxaa waaye itaalka jabaqda waxaa laga wadaa dhaqsiga energy-ga loo isticmaalay area-da ama goobta loo isticmaalo waa durbaanka oo kale ama miis oo kale macnaha gacanta oo kale marka energy yar aan saaro intensity-giisa wuu yaraanayaa hadduu energy fara badan aan si xoog aan ugu dhufto power badan haddaan u isticmaalo intensity-ga oo badan marka intensity-ga waa maxay waa energy-ga dhaqsiga energy-ga uu area-da uu ku sameeyo marka qaacidana lagu helaa intensity-ga ayada waxay u taagan tahay intensity waxaa lagu helaa power-kii oo rate-kii power-kii oo energy-ga oo loo qeybiyey area qaacidadaas ayaa intensity power-ka lagu helaa formula qaacidadan waa kana ama meesha area-da bedelkeeda waxaan dhihi karnaa haddii area aan lagu siinin waxaa lagu siinaya radius ama distance qaacidadaas isticmaalaysa maxaa leedahay
waa area intensity waxaa lagu helaa power loo qaybsho area maadaama ay tahay area waxaan ku bedelanaynaa 4 by r square by-dan waan naqaanaa waa 3.14 oo qaadanaysa ama 22 laakiin buugad wuxuu u shaqeeyay 3.14 mar walba radiuska waad jibaaraysaa waayahay where I waxay u taagan tahay waa intensity of sound b-da waa itaalka jabaqda b-da waa powerka awoodda ama energy-ga tamarta r-tan waxay u taagan tahay distance ama radius halbeeg intensity waa maxay watt per meter square wattku waa powerkii meter square-kana waa area tusaalahan aragna marka waxaa lagu dhahay the power of sound awoodda codka ayaa wuxuu yahay powerkiisu waa eber dhibic eber 2 watt find so write the intensity of sound itaalka jabaqda laga rabaa oo of wave-ka with radius d gacanku ayuu yahay 2 mitir maxaa dhahayna marka power waxaan haysnaa eber dhibic eber 2 watt radius ana la sii 2 mitir ah itaalka jabaqda oo aayadana la dir aayada marka maxaa loo helaa qaacidada hadda isticmaalan waxaa leenahay power loo qaybsho area maadaama uu yahay area maadaama aan haysanin radius haysaa marka area bedelka waxaan ku bedelaynaa 4 by r square aa leedahay marka powerka waxaa haystaa eber dhibic eber 2 watt loo qaybshay 4 aa leedahay waxaa soo qaadanaysaa 3.14kii oo radiuska ah waxaad arta square garaynaysa waxaa leedahay 2 mitir square ah marka 4 waxaad ku dhufanaysaa 3.14 kadib waxaad ku dhufanaysaa labadii oo la square gareeyay kadib intensity itaalka jabaqda waxaa noo soo baxayso 4 times 10 power minus 4 watt per meter square waayahay halkaas marka intensity waaye intensity level aan aragna marka intensity level maxaa la heerka itaalka intensity level waxaa loo soo gaabay xarafka b calaamad ahaanna taasaas tanaa sax marka maxaa lagu dhahay sound can be measured waxaa lagu cabiraa equation-ka hoose ayaa lagu cabiraa halbeeg intensity level waxaa loo yaqaan decibel oo loo soo gaabay db marka qaacidada lagu helo intensity level-ka guud ahaan waa kana qaacidada waxaa loo yaqaanaa intensity level maxaa waaye b-da waxay u taagan tahay intensity level waxaa lagu helaa mar 10 oo lagu dhuftay log oo intensity-gii oo loo qaybshay intensity oo ah zeb 0 marka intensity-gan waxaa loo yaqaanaa hoostaana noogu qoran tahay waxaa loo the maximum threshold intensity itaalka jabaqda qof bini'aadanka uu maqli karo waa 10 power minus 12 watt per meter square mar walba marka I sub 0 waxaad u qaadanaysaa 10 power minus 12 watt per meter square haddii centimeter laga intensity-ga ayada haddii centimeter lagu siiyana meesha minus 12 waxaad ka dhigaysaa minus 16 ayaad ka dhiganaysaa marka ay tahay halbeeg centimeter lagu siiyo intensity level-ka intensity-ga caadiga ayada tusaalahaasna aan ka aragno waxaa lagu dhahay marka tusaale wuxuu ku dhahay sound cod ayaa intensity-giis itaalkiis uu yahay 4 times 10 power minus 6 watt per meter square what is waa maxay the intensity level itaalka jabaqda laga rabaa inaad soo saarto heerka itaalka marka heerka itaalka waxay u taagan tahay b-da waxay u taagan tahay waa decibel halbeega waa intensity level ayada lagu siiyey waa 4 times 10 power minus 6 watt per meter square waxaan kaloo constant aan haysnaa threshold waxaa loo yaqaano oo threshold frequency ama I 0 oo 10 power minus 12 watt per meter square mar walbana constant ayaad ka dhiganaysaa qiimahaasi marka qaacidada isticmaal maxaa lagu helaa intensity level waxaa lagu helaa 10 log oo lagu dhuftay ayda intensity oo loo qeybay I 0 oo constant ah marka b-da noo soo qaado waxaa leenahay 10 mar walba soo qaado 10 log waa soo qaadanayna bracket aad furanaysaa waxaa leedahay marka 4 bracket furo 4 oo 4 times waxaa soo qaadanaysaa ayda qiimeed oo ah 4 times 10 power minus 6 watt per meter square loo qeybshay aad leedahay waxaa u qeybinaysaa I 0-gii waxaa u qeybinaysaa oo 10 power minus 12 watt per meter square marka ugu horeeya labadan aad isku qeybinaysaa marka waxaa badan b soo qaado calaamadii intensity level-ka soo qaado waxaa leedahay 10 log marka dhacdo qiimaha bracket ku jiro isku soo qeybi marka qeybta marka waxaa isticmaalaysaa intensity level-ka waxaa sameynaysaa marka hore horta labadooda 4 times 10 iyo 10ka waxaa soo qaadanaysaa qiimahooda afarta soo qaado afarta soo maadaama kan hooseeyo 1 uu qarsoon yahay afartana soo qaadanaysaa afarta kora soo qaadane kadib labada times 10 hal xabka soo qaado kadibna powerka minus 12 kor oo maraa marka qiimaha kor ayuu marayaa wuxuu noqonaa marka maadaama intensity level-ka kan aydan caadiga maadaama ay tahay 4 times 10 power minus 6 midkan uu yahay 10 power minus 12 waxaa sameynaysaa 4ka labada horgale maadaama 4 la uu ka dhaxeeyo 4ka soo qaadanaysaa 4 leedahay laba maadaama times 10 times 10 ka labaduba ay wato hal times 10 ka soo qaadanaynaa marka qiimaha I sub 0-ga oo constant-iga ah minus 12 mar walba kor oo maraa marka soo raadinayso intensity level-ka kor oo maraa wuxuu noqonaa marka plus calaamada minus-ta calaamada negative waxay noqonaysaa plus ay noqonay kor oo maraa
marka meesha kor marka koreya wuxuu inoo noqday koreya wuxuu noqday -6 iyo wuxuu inoo noqday lagu dhuftay -6 oo lagu dhuftay wuxuu noqday +12 marka waxaa sameynaynaa +12 iyo -6 maadaama way kala jarmayaan markay kala jarmaan waxaa inoo soo baxayso -6 iyo -12 haddaan kala jarno waxaa inoo soo -6 kan marka maadaama -12 uu yahay balaas oo noqonaa kor oo maraa wuxuu noqonaa +12 marka labadooda marka kala jartana waxaa noo soo baxaya 6 qiimaha weyn tirada weyn ayaa marba calaamada siinaysa waxay noqonaya marka powerka marka kadib scientific aad gelinaysaa waxaa leedahay 10 log aa leedahay 10 log 4 times 10 power 6 ama waxaa dhigi kartaa 10 log 4 lixdaad furfuraysaa markaad furto caadi 0 6 eber aad ku darsanaysaa waxaa leedahay 10 log 4 iyo 6 eber kadib intensity levelka waxaa inoo soo baxay 66 oo halbeeg ah waxaan raacinaynaa decibelka example-ka u dambeeya intensity levelka asna wuxuu ku dhahay what is the intensity waa maxay itaalka of 60 dB haddii heerka itaalka uu yahay 60 solution marka waxaa leenahay marka asaga qaacida ma laha marka ayada maadaama ayadaas laga diray intensity-ga b-da waa leysii marka qaacida ma laha maadaama uusan qaacida lahayn anaga waxaan isticmaalaynaa qaacida simple iska fudud oo macnaha ku fahmi karto waxaa leedahay maadaama ayada soo qaada ayada waxaa ku helaysaa 10 aa leedahay 10 power aa saaray meeshaan power u taaganta power marka waxaa saaray intensity levelka oo loo qeybsho 10 aa leedahay oo lagu dhuftay isab 0gii oo ah key constant-gii maxaa sameynay waxaa leedahay ayada waxaa ku helaysaa intensity waxaa ku helaysaa 10 lagu jibaaray aa leedahay calaamada b-da oo loo qeybshay 10 kadibna waxaad ku dhufanaysaa isab 0 marka ayada waxay kula mid tahay 10ka caadi usoo qaado marka intensity levelka waxaa lagu siiyey 60 60na waxaa u qeybanaysaa 10kii hooseeya ahaa waxaad kusii dhufanaysaa isab 0ga oo lagu sii 10 power -12 oo constant mar walba aad qaadanaysaa intensity waxaa lagu helaa leedahay 10ka soo qaado haddii 60 loo qeybiyo 60 haddii loo qeybiyo 10 waxaa soo baxay 6 lagu dhuftay leedahay 10 power -12 kadibna automatically scientific aad gelinaysaa markaas scientific waxaa leedahay 10 kadib waxaa sameynaysaa labada hooseeyo hal xab ka soo qaada maadaama isku mid yihiin 10 aa ka soo qaadanaysaa koreeyahan kan powerkiisa maadaama uu yahay 6 kan uu yahay -12 waxaa sameynaysaa waad kala jaraysaa marka 6 iyo -12 kala jar waxaa soo baxayso 6 calaamada lambarka weyn calaamada wadana waa minus waxaa leedahay marka 10 power -6 watt per meter square marka itaalka jabaqda haduu yahay 60 heerka itaal jabaqda haduu yahay 60 decibel itaalka jabaqda wuxuu noqonayaa 10 power -6 oo watt per meter square pitch-ka aanu kaalay marka pitch maxaa la pitch-ku asaga waa faraqa loo yaqaan af Soomaali ahaan waa change waa isbedelka frequency mar walba waxaa ogaataa pitch-ku wuxuu ku xiran yahay waxa loo yaqaan frequency-ga amplitude-kan wuxuu ku loudness-kan wuxuu ku xiran yahay amplitude-ka saas u kala soco marka therefore hadaba sound-iga codka with long wavelength codka wavelength-ka dheer has low pitch farqiisu pitch-kiisu wuu yar yahay alashaan wave-ku ka wavelength dheer yahay waa ka frequency uu ku macnaha pitch yar yahay maadaama pitch-ki frequency-ga isku xiran yihiin and the sound with short wavelength when codka du wavelength-kiisu uu gaaban yahayna wuxuu soo saarayaa high pitch macnaha tusaale waxaa loo jeedaa labada sawir kanna waa macnaha sawir waaye wave kanna wave waaye marka labada wave u fiirso kan wavelength-kiisa ayaa dheer kanna wavelength-kiisa ayaa yar maadaama hadduu wavelength-ka uu yaraado frequency-ga ayaa badanaya haddii wavelength-ka uu dheeraadana frequency-ga ayaa yaraanaya marka frequency pitch-ku isleeyihiin marka hadduu pitch-ku frequency-ga hadduu bato pitch-ka badanaya hadduu frequency yaraado pitch-ka yaraanaya marka hadduu wavelength-ka uu dheeraado pitch-ka uu yaraanaya hadduu wavelength-ka uu yaraadana pitch-ka uu dheeraanaya marka maxaa baad wave kan maadaama wavelength-kiisu uu dheer yahay pitch-kiisu waa low pitch kana maadaama wavelength-kiisu uu yar yahay wuxuu noqonayaa high pitch ama high frequency kana wuxuu noqonayaa low frequency musical notes qalabyada muusigada codadka soo saaraan have hyper pitch pitch-kooda aad ayuu sareeyaa if their frequency is higher hadduu frequency-gooda uu sareeyo marka hadduu frequency bato pitch-ka badanaa hadduu frequency yaraadana pitch-ka yaraanaya pitch-ka marka waa isdaad characteristics astaamaha pitch-ka waxaa kamid astaamaha pitch-ka waxaa kamid ahaa astaamaha pitch-ka waxaa kamid sound-iga by which we can distinguish waxaan ku kala saari karnaa different sound codod kala duwan oo loudness ku mid ah marka the higher frequency kullama frequency uu bato the higher of the pitch-ka ayaa badanaya kana hadda maxaa waaye maadaama wavelength-ka hirbaaca uu batay
pitchkiis wuu yaraanaya kana maadaama wavelengthka uu yaryahay wuxuu soo saaraya high pitch qodobka noogu dambeeya oo ah harmonic contentiska harmonic content ama waxa loo yaqaan quality-ga harmonic contentiga and quality waxa loo yaqaanaa codka wuxuu ku xiran quality-ga codka mar walba wuxuu ku xiran yahay waxa loo yaqaan waveforms qaabka wave ku sameysmo we can distinguish waxaan ku kala saari karnaa between sound codadka ama notiska produced uu soo saara by different Quran reciters dadka Quraanka akhriya tusaale oo kale ama dad canjalada oo kale maxaa waay guud ahaan hada soo koobo harmonic content and quality waxa loo jeedaa tusaale hal qof oo kale meel hada hal qof uu ka qeelinayo ama uu ka hadlayo ama uu Quraanka akhrinayo iyo meel hada dad fara badan ay yihiin isku mid maahan meesha dadka faraha badan ayaa quality-gooda badan meesha hal qofna quality-giisa ayaa yar marka meel hal qof ka hadlayo iyo meel dhowr qof ka hadlayo marka waa isku quality maahan marka saas darteeda marka quality-ga maadaama ay kala duwan yihiinna waveformska qaababka wave ku sameeysan way ku kala duwanaanaa intaas macna lagu soo koobi karaa anagoon qofkuna arkeen ayaan qiyaas karnaa inta this is because maxaa la sound codka produce uu soo saaro by different Quran reciters Quraanka la akhriyo differ wuxuu kala duwan in quality tayada ay kala duwan marka haday reciters ay bataan quality ayaa badanaa haday reciters ay yaraadaana